السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه waxaan ila wadaagaa qiso yar oo aan ka akhriyay safatu tafaasiir iska lahaa sheekhi maxamed cali asaabuuni. waxaana soo warinayay imaam alqurdubi markii suuratatiin tafsiirkeeda ku dhex jiray. imaam qurdubi wuxuu sheegay waxaa jiri jiru yiri nin yiraahdo ciise alhaashimi wuxuu jeclaa haweentiisa aad u jeclaa weliba jecel zaa'id ah. maalin maalmo kamid u yeeray wuxuu yiri hadaada ka urahaneen dayaxa saddex ayaa ay furantay yiri bas isla markii way xijaabatay waxay dhahday waa ay furtay aad ugu murugooday marka furrinkeeda weliba murugo aan caadi ahayn. isla markii wuxuu u tegay khaliifatul mansuur amiir almu'miniinka wuxuu ku yiri arrinta u sheegay amiirkii wuxuu iskugu wacay culimadii fuqahadii dhan joogtay waqtigaas. arrinta u sheegay wixii dhacay loo sheegay culimadii dhan waxay isku raaceen fuqahadii dhan waxay isku raaceen inay ka furan tahay ilaa hal nin ma ogi. amiir almu'miniinka wuxuu yiri maxaa la aamusta adiga jawaabtaadaan sugaynaa. markaasuu wuxuu yiri laqad khalaqna al-insaana qaala allahu tacaala laqad khalaqna al-insaana fi axsani taqwiim. insaanka wax ka wanaagsan ma jiro, insaanka wax ka qurux badanna ma jiro. sidaasoo naxaaskiisa ku soo ceshtay furniinkana uga badbaaday. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.